geesiyadii Carabeed qarnigii 20aad barnaamijkii kan ka horeeyay waxaynu ku soo qaadanay Saddam Hussein maantana waxaynu isdul taagi doonaa geesi kale oo Carabeed saameyn togan kaga tagay Carabta iyo Muslimiinta Umar al-Mukhtar يسرقون أرضنا يدمرون بيوتنا يقتلون الأبرياء وتسمي ذلك بالسلام والله لن يفسدني سلام ذلك الرجل عمر المختار وحوا جيسيس كعابي كوميستي تليانيغا اي كسو دولي دلكيسا عمر waxaa lagu yeeri jiray geesigii saxaraha The Lion of Desert iyo shiiqii shuhadada waxa uu ku dhashay magaalada dhacda xadka Masar iyo Liibiya sanadii 1858 waxa uu ahaa macallin dadka diinta baray xilligii kumeystoo dalkiisa soo galayay wixii xilliga ka dambeeyay wuxuu shiiqa deegta suurta waranka iyo leebka sidoo isaga dulqaadi lahaa heeryada gumeysiga isagoo uga faa'iideysanaya aqoonta uu leeyahay dalkiisa istiraatiijiyad waxa uu Umar al-Mukhtar ku qaadi jiray ciidamadii gumeystaha Talyaaniga weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa waxaana laf dhuungasho ku noqday ahdaaftii iyo danihii gumeysiga waxaana jihaad ka bilaabay isagoo 53 sano jir ah waxaana la dagaalamayay muddo 20 sano ah shiiqa ayaa ku noolaa magaalo ku taala galbeedka Suudaan halka uu in muddo uu ku noolaa isagoo wakiil uga ah Mahdigii Suudaan waxaana yiri Maxamed Mahdi Sunaysi waa Mahdigii Suudaan haddii aan haysan lahayn 10 Umar Mukhtar oo kala ah way nagu filnaan lahayd waa mid u saaxiib xigmad iyo geesinimo Umar al-Mukhtar mid kamid ah dagaaladii ugu caansan Umar al-Mukhtar oo la galay Talyaaniga waa dagaalkii Yawm Rabiica ay ka dhacay bariga Liibiya 28 Maaris 1927 waana dagaalkii khasaaraha ugu badnaa la gaarsiiyo Talyaaniga arrintaas oo maamulka Rome ka soo gaartay fadeexo weyn Umar al-Mukhtar waxa uu noqday mid si weyn u doondoonayaan Talyaaniga iyagoo madaxiisa duldhiga adduun lacageed oo gaaraysa 200,000 oo faran ayna siinayaan ruuxii soo qabta Umar al-Mukhtar dagaalka falkafol isaga hor yimaadeen ciidamadii gumeysiga Talyaaniga iyo kuwii shiiqa ayaa waxa la dilay faraskiisii uu saarnaa waxa uu shiiqa ku dhacay dhulka dabeetana waxa gacanta ku dhigay ciidamadii Talyaaniga bishii Sebtembar 1931 waxaana maxkamada la soo taagay isla bishaas waxaana lagu xukumay dil toogasho ah Umar al-Mukhtar oo caan ku ahaa shakhsi aan la gamban go'aanadiisa muhiimka ah ayaa Talyaaniga markuu yiriisa soo dhiib oo jooji dagaaladii waxa aad wadaan waxa uu ugu jawaabay Umar al-Mukhtar oraah aan oo dhaxalgal noqotay oo oranaysa isma dhiibeyno waynu guulaysanayna ama waynu dhimanaynaa gabagabadii noloshiisa maalinimo 4 sanadii 1931 miilaadiyada oo ku beegan 1350 hijriyada ayaa shiiqa la keenay fagaarihii lagu daldali lahaa Umar al-Mukhtar oo ku xiran silsilado hareeraha ay ka socdaan ciidamada gumeysiga Talyaaniga shiiqo dhool cadeynaya kuna qanacsan qadarta Alle waxa la kiciyay diyaaradihii Talyaaniga si ay guuxooda u qariyaan codka shiiqa hadii uu isku dayo inuu la hadlo shacabka ciidamadii Talyaaniga waxa amar lagu siiyay ruuxii dhaqdhaqaaq sameeya ama aad ka darantaan wax uun yar oo damqasho ah dil maalinta Umar al-Mukhtar hadal buu yiri oo ahaa waxa kula dagaalami doona jiilka iga dambeeya iyo kuwa ka sii dambeeya waxa aan noolaan doona waqti ka dheer waqtigan daldalaya sidii way dhacdo maanta Umar al-Mukhtar waxa uu ku dhex nool yahay qulubta muslimiin badan oo caalamka dacladiisa ku kala nool waxaana sanadkii 1981 la soo saaray film laga turjumayay halgankii dheer ay shuuqu soo galay taasoo loogu magac daray libaaxii saxaraha waxaana sameyntiisa ku baxday qarash fara badan sidoo kale waxa loogu magac daray wadooyin waaweyn oo ku yaala wadamada Carabta qaarkood 1961 waxa Liibiya laga furay jaamacad loogu magac daray Umar al-Mukhtar magaciisu waa raaga Rabbi ha u naxariistay Umar al-Mukhtar waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan